saakay kulankeennan dhowr ujeedo lahaa waana ku mahadsantihiin inaad subaxii hore way xilligii la balansanaa odayaasha badankooda ay ka soo hormareen noona yimaadeen kulankeennan waa isbarasho wasaaradda wasiiradan waa cusub yihiin waa ku cusub yihiin wasaaraddan rag xilal kala hayay oo wasiiraha waa ku jiraan inaan isbaranno odayaasha maadaama wasaaradda odayaasha la shaqaysa ay tahay in bal mas'uuliyiintii la isbarto kaas waa qodobka koowaad waana barateen oo hortiinana waa ka hadleen wasiir dowlaha u dambeeyay iyo wasiir ku-xigeenka intaas ka sokow odayaasha doorkooda isku sheegi mayno dowladnimada Soomaaliya 20 iyo dhowrkii sano oo la soo dhaafay asaas bay u ahaayeen baarlamaan la dhisayo oo hay'adda u weyna dadkii dhalayay oo ay ka imaanaysay gacantooda ama dad ay ayagu soo xuleen ay sii xuleen ama si toos ay u qoreen labadaba odayaashu marka dowladda rukni asaasi ah ayay ka yihiin waa hay'ad weyn oo hay'adda dowladda ka mid ah hay'adaha dowladda ka mid ah waliba midda ugu muhiimsan waa siyaasaddan la qabiileeyay odayaashu asaas bay u yihiin marba haddii lagu yimid meeshoodii taas waa qodob oo odayaashu ma ahan waqti gaar ah 4 sanaba hal mar inta loo yeero markaas xildhibaankii iyo maaragtay qofkii wax raadinaya uu soo xasuusto kaliya ma ahane 4 sano shaqadoodii qaybna baarlamaanka ka socotaa qayb aqalka sare ka socotaa qayb dowladda xubnaheeda kale ka socotaa ayagana de shaqo la isaga baahan yahay waxaan rabnaa marka doorka odayaashu hadba meel buu joogaa dalkan hadda waxa ugu muhiimsan oo number 1 ah odayaashu waxay soo qabteen xildhibaan ay soo xuleen dib u heshiisiinada ay ka qayb galaan qabaa'ilka ay heshiisiyaan nin walba qabiilkiisu si gaar ah ula jeclaadaa nabad iyo baraare laakiin waxaan rabnaa qabaa'ilka Soomaaliyeed oo isku duuban inaan hal mar la wada jeclaano waa dalka Soomaaliya markaas inaan hal mar la wada jeclaano oo sida qabiilka hoose aan wada shaqeynayno oo kale tii guudna aan ka wada shaqo galno dowladda hadda jirta hal ku dhigeedu waa maqasheen waana ogtihiin waa Soomaali heshiis haddana dunida heshiis la sii ah waa hal ku dhig odayaashu asaas u yihiin Soomaali heshiisa waxay ka guntantaa odayaasha dhaqanka qorshe ay la yimaadeen oo hirgalay oo dowladuna hirgelinayso dhinaceeda ka qaadanayso ayaa asaas u ah Soomaalida heshiiska laga dhex raadinayo qaybo ka mid ah heshiis rabin baa jira oo dadka dhameeyay oo deegaamadii cuna qabateeyay oo odayaasha dhaqanka ee halkan jooga dhammaantood ay ugu wada xukuman yihiin dil waxaan hayaa rikoorka odayaasha 135 ka tirsanaa ee ay dileen waa 29 oo saaxiibadiinaha oo idinla joogi jiray oo idinla fadhin jiray oo aad jeclaydeen oo dadkooda jeclaayeen 29 ka mid ah waxaa dilay kooxahaas manaxyaasha odayaasha guud oo ay ku jiraan kuwaasi oo ay dileen qiyaastii way badan yihiin laakiin rikoorka la hayo oo wasaaradda taalla 324 oday way 324 oday ayay dileen oo ayaguna siun dowladnimada dhismaheedii qayb ka ahaa oo ugu dambeysay haddeerta nabadoon wiigii hore halkan lagu dilay qaar saaka aan joogin toddobaadyo ka hor waxay ku sigteen gacantooda inay ku baxaan
odayaasha oo meediyaha laga wareysanayay xaggan ka baxay waa gurgurtay xagga yuu dambi ka galay arrintaas marka ma waxaan fiirsanaa sida xoolihii ariga in mid midna loola soo baxo oo inta kale hortooda lagu gowraco mise waxaan waa wax la si qaban karo bulshadii asaas baa u tihiin idima cafinayaan murtadiin baa lagu wada xukuman yahay baarlamaanka la soo xulaa murtad ugu xukuman ummadda Soomaaliyeed inta dawladnimada jecel baa murtad ugu xukuman ma waxaan sugnaa marka intaan hal intay noola baxaan aan dhahayno 324 bay marayaan 25 ku dar 26 ku dar 500 gaarsii 1000 gaarsii haddii la kala dhantaala yahay oo xoogga aan la midayna way dhacaysaa laakiin wixii naga dhimanayaan baa naga dhintaane naftu mar bay dhacaysaa laguma sasabi kara nafta aduu bannaanka soo istaagin oday baa tahay ninku dilaayo kugu xukuman mana u maleynayo heshiiskoodu xitaa been inuu yahay run inuu yahay oo heshiis beenaaleyaal waaye xataa qofkii isle xoogaa yar baad maaragtay shuqful dalool iska heli kartaa arrintaas marka waxay tahay ajandaha dowladdu oo madaxweynahana ka maqasheen xukuumaddana ajandayaasheeda 6 midka ugu weyn dalka dib u xoreyntiisa iyo sugidda amniga arrintaas odayaashu marka waxaana loo soo xil saaray odayaashu inay go'aamiyaan oo dubaha ku dhuftaan dabcan kulamo waaweyn oo madaxda dawladda loo tagi doono annaga kan isku sii diyaarinayna iyo inaan fariinteeda soo gaarsiino oo guddiyo inta la qabto shaqadii hoos loo sii galo arrintaas marka waxaa waajib ah in odayaashu magaaladan Muqdisho oo maalinba hotel la galayo shalay ay dad ugu xireen baabuur gudoomiyaal degmooyin waaxeed oo ay dhimanayaan maalin kasta dadkeeni sidaan laguma fiirsan karo odayaashan waxaan rabnaa odayaasha Hargeysa kale inay noqdaan ama Somaliland jira ama kuwa gobolada Puntland jooga dowr muuqda inay qaataan dawladduna odayaasha dowrkeeda ay ixtiraafto oo ay noqon 4 sanaba odayaasha la isku soo yeero dantaas yarta odayga teleefankiisuna sanadka u dambeeya xoogaa busy u noqdo 3 sano ka horeysana aan teleefanba laga qaban burdo oo duqi waxaan rabnaa 4 sanaba odayaasha teleefankooda in la qabto oo 3 sano shaqo ay ku jiraan sanadka u dambeeyana ay shaqadooda caadiga ay timaado arrintaas marka odayaalow maanta shirkan wuxuu yahay kaalinta odayaasha odaygu qori qaadi maayo xaasha lillah laakiin kaalintiisu waxay tahay bulsho weyntaas ku xiran iyo bulshada inuu ugu dhawaaqo war hal iska celiya cadow mararka qaarkood odayaashu way go'aamiyaan dagaalada qabaa'ilka dhaqanka waa naqanaa odayga waa go'aaminayaa waa galaynaa buu leeyahay kii oo kala rabnaa kana waliba xaqa kaasi xaq maan waa nin walaalkeen waa dad walaalaha isdilaya waa midka xaqa ilaahay lagu dhawaanayo midkan waa arrintaasna waa ajandaha ugu muhiimsan odayaashu kaalintoodii waliba shirweyne weyn oo la geli doono madaxda dalka aan geli doono qodobka saddexaad odayaashu waa wasaaradda waxay rabtaa kaalin muuqda inay yeeshaan oo 4 sano oo wada shaqayn buuxda ah oo odayaashana laga warqabo odayaashana maaragtay ay noqdaan jismi jira waddankan waddan qabiil waaye waddan qabaliya waaye lama inkiri karo hadduu yahayna odayaashuna base bay u yihiin odayaasha marka inaan si hoose oo kaamaradu aysan joogin aan uga wada tashanno nusaaca ugu dambeeya arrintaasay ahayd odayaalo soo dhowaada waxaan rabnaa inaad hor kacdaan 10 wiil oo caas 10 kun oo wiil oo caasi ah gabdhaba waa ku jiraan oo caasi ah oo ku fallaagooday bulshadoodii
ayaa 15 sano haysata oo dilaysa ummadii oo jaqaysa dhiigii ummadii oo Allah u naxariisto u kaalmeynayna ay faatixada umar ilaahayna ummad sidaas uma u helinayaba إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن اسبدل بناك لسو استاغنا إلهي ما أنا كالمين يا وأنا قرب استاغا يا كواس نوغه لين ماي علماء دي يوضياش واسكو حريين علوان اسكو جيران وانا اسكو جيران وانا بدون نضع علماء بدن باكو جرت يوضياش دقق ayadana waxa weeye culimadeena inaan kaashano qaybta kale oo naga maqan go'aan bulsho inaan soo saaro oo la isaga celinayo kooxaha sargixisada wasaaradda isagelinna ma jirto guri isagelinna ma jirto bulshada muqdisho haddii ay go'aansato masalan tusaale haddaan soo qaadano hadday go'aansato sida dhiqlihii oo kale loo siibi karaa anagu marka bulshada waxaan rabnaa odayaashu inay bulshada noo gaarsiiyaan bulshada inay gaarsiiyaan inay soo sheegaan guriga dariskooda kan ku jira kan guriga kirada raadinayo qarax ku diyaarinaya inay soo sheegaan baabuurka ay soo raacaan oo bajaajta ama baabuurta kale ay soo raacaan in la soo sheego meesha maraanba waxa la rabaa tuka cambaaraysan in noqdaan arintaas waa yoolkeena u dambeeya laakiin hadda waxaan iska wareysanaynaa waa wada tashi bal kaalinta odayaashu ee qaadi kan waxa laga yaabaa kaalin ka weyn odayaashu inay noo sheegaan idinka idin dhageysanaynaa aad iyo aad baan u mahadsantiin